فلس waxaa la sheegay inay uur lahayd waa ka dareemi kartaan heesta markay qaadayso waa la garaacay nabad iyo nolol waxa weeye gabadhaas beerkay ka tugaa waxa loo soo adeegsaday gabdho muuqaal argagax leh oo la sheegay in laga duubay fanaanada Felis Cabdi ayaa guud ahaan qabsaday baraha bulshada haddaba muuqaalkan ayaa laga dheehan karay gabar si arxan darro ah loogu diray laamiga dhexdiisa iyadoo ay dumar badan jirdil fara badan ku sameynayaan haddaba arrintan iyo xogteeda waxaa sidoo kale inoo faahfaahiyay wiil Soomaaliyeed oo goobjoog ka ah halka ay dhacdadu ka dhacday waxa uu sheegay in fanaanada Felis Cabdi loo geystay jirdil aad u ballaaran sidoo kale waxa uu shaaciyay hagardaamo iyo dhagar lala damacsan yahay shiinaaqyaar iyo sidoo kale lixle oo ka qayb ah heystii lagu karbaashay xisbiga nabad iyo nolol haddaba inta aan u galin warbixintan dhiilada iyo murugada leh haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeeyay ee janaalka Haldoor Media fadlan ha ilaabin subscribe saarato sayna ku dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino haddaba daawadayaal sida aad wada ogsoontihiin waxa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada qabsaday heesta ay soo qaadeen kooxda waayaha cusub oo ay ku karbaashayeen xisbiga nabad iyo nolol haddaba heestan ayaa la kulantay mucaaradaad aad u badan waxaana aad u farabatay dadka aan ka helin oo disleegta saaray heestaas haddaba fanaaniin badan oo hore uga tirsaneed waayaha cusub ayaa ka baxay kooxdaasi sidoo kale fanaaniin caan ah ayaa u soo jawaabay kooxda waayaha cusub haddaba waxay halkaasi marto oo dhiilada fanku ay hawada isku sii shareertaba ugu dambeyn fanaanada Felis Cabdi ayaa waxaa loo geystay jirdil aad u xoog badan haddaba arrintan oo marka hore la qarinayay shaki oo kaliyana ay dadweynuhu ku soo koobayeen ayaa waxaa soo baxday muuqaal laga duubay inta ay xaaladaasi socotay haddaba waxaynu jeclaysanay in dadka ku xiran bahda Haldoor Media aynu muuqaalkan la wadaagno wixii afkaartiina aad qaybta comment-ka ku soo qortaan haddii qofka sidan loo jir dilay ay tahay Felis Cabdi iyo haddii aysan ahaynba haddaba aynu isla daawano muuqaalka argagax leh ee laga duubay gabadhan sida xun loo jir dilayo روح بالطريق زحوا بالطريق زحي زحوا بالطريق زحوا حتى بالبوليس عليهم بلال waxaan rajeynayaa in aad daawatay muuqaalkan daawadayaal muuqaalkan ayaa dad fara badan ama ka ku noqday haddaba sidoo kale waxaynu idinla wadaagi doonaa wiil Soomaaliyeed oo sheegay markii ay xaaladan dhacisay inuu goobjoog ka ahaa meeshaasi kuna sugnaa wadanka Holland haddaba shakhsigan Soomaaliyeed oo caan ka ah barta Facebook ayaa muuqaal live ah oo soconaya waxa uu ku tilmaamay arrimahan sidoo kale waxa uu sheegay hagardaamo kale oo lala damacsan yahay lixle iyo shiinaaqyaar haddaba aynu isla daawano muuqaalka wiilkan Soomaaliyeed Felis waxaa la sheegay inay uur lahayd waa ka dareemi kartaan heesta markay qaadayso in maaragtay ay tahay qof xaamila ah laakiin waa qof xaamila ah gabadhaas waxay arrinkeedu xaalkeedu waxay caawa halkaas u marayaa waa la garaacay nabad iyo nolol waxa weeye gabadhaas beerkay ka tugaa waxa loo soo adeegsaday gabdho hadba marka caawinta Facebook soo galaan ama bari waxay dhigi doonaan gabadhaas waxa dilay waa dawladda Soomaaliya waxa la dhigi doonaa waa farmaajo ninka dilay waxa la oran doonaa rag baa dilay gabadhaas waxa garaacay oo beerka ka tumay caawa oo ku istaagay oo fargeetooyinka iyo waxa weeye midiyahan yarka waxa weeye ku xagxagay oo caloosha iyo meel kasta waxa weeye kala dhacay waxay ahaayeen gabdho marka la sheegay urursada iyo mareexa u badan caawa waxa weeye Felis Cabdi xaalkeedu halkaas u maraya waxa la sheegay gabadhaas iyadoo ma tagaysa oo maaragtay qalqalan in maaragtay isbitaalka loo qaaday waxa rajeynayaa inay caafimaad hesho gabadhaas waxa raamar dadka Soomaaliyeed aan u sheego fanaanadu hadday qaldantay ma ahan in gabadh fanaanad ah oo Soomaaliyeed idinku toosin kara oo dhihi kara walaalay arrinkaas waxa weeye ceeb iyo gaf uu yahay dawladdan baa u gaftay dad Soomaaliyeed baa u gaftay inaad garaacdaan waxa waa ka soo jeedaan arrinkan waxaa marka aan hadda rabaa inaan u baahiyo waa arrin la qarin rabay Holland waxa weeye haddeertaan aniga
maalooda ka yimi safar baan ku ahaa isla caawa waxa uu dhalinyaradii aan la deganaa oo marka aan kula noolaa labadii beri aan joogay oo aan xaafadooda deganayn oo qaraabo aan nahay dhalinyartiiba hadda ii soo sheegay arrinkaas inay dhacday hadda Holland anigu kuma ogeyn dal bila amaana meesha waxaan bisdahayay haddaan ogaa xataa in maarta caaladeedu ay halkaas tahay fargeetooyin iyo midiyo waxa weeye caloosh la iska gelinayo anaan ba aadeen waa dad ba xarash ari lafteedii haya oo Soomaaliyeed life intuu soo galo wax ka dhacaan waa iska garan kartaa marka meeshu inay safe tahay buu maleynayay arrinkaas aragna idin la wadaago waxa weeye warka uu iska soo daba dhici doonaa Shiina Khiyaar waxa la jeedinayaa inuu maarta asagana soo hadlo laftiisa waxa la ii sheegay inuu gacan ku gabad yahay ninkii lixla ahaana waxa la raadinayo laftiisa oo dhalinyaro ay raadsanayaan waxa kula talin lahaa Shiinow adiga iyo ninkii lixle saddex inaas kullu heesta sameeyay inaan guriga ka soo bixin tala walaalnimo aan u siinay xaqiiqo jirto marka waxa kula talin lahaa walaalayaal guriyihiin iska jooga waayo caawa u jeeda gabadhaadi waxa weeye naasihii iyo calooshii iyo meel kasta waxa weeye fargeeto laga dhacay oo la jeexjeex marka adiga hadda dadkaas oo ku qabtaan waxay la tahay ila la batay marka mucaaradka waska aysanay marka habar gidir iyo abgaal ee siyaasadda waxa weeye hadba dhinac u riixaya Sheekh Shariif Xasan Sheekh Atrima Abdishakuur raggaas iska aysanay waayo nimankaas waxay maanta la dacaysid oo bari aska hortimaadaan waa ku salaamaya waa salaamaysa waxa la yiraahdo war Sheekh Shariif war Xasan Sheekh war Atrima Abdishakuur waa ku salaamay waa lagu soo dhaweynaya laakiin nabadii xarashkii maalinkii live-ka ku jirtay bay ku qabanayaan xiniyahaas haday baan biinsaxayaan waa kaga siimay marka gabadhaas sidii shinidii baa caawa loogu tagay dagaan baa saha laga dhigay ma noola kulay baan waxa ma soo dhaweynayo arrinkaas waxa weeye ar la soo dhaweyn kara maaha ilaahay ha u boganayaa walaasheen iyaduna waa khaldantay Soomaaliya waxa lagu qiyaasaa 20 milyan 18 milyan waxa la qiyaasaa inay dawladda Soomaaliya taageeraan 2 milyan oo kaliya baa ka soo horjeeda dad baad hadalkayga la yaaban 20 milyan Soomaalidu way ka badan tahay ama waa tahay laakiin aqliyan iyo maskaxiyan baa dadka loo dilay marka dadka waxa lagu sheekay Soomaali 8 milyan oo dhaafta miya ma dhaafto 30 sano aan joognaa 30 milyan oo ku dhadhownahay marka xaqiiqada jirto waxay tahay 20 milyan oo Soomaaliya oo ummad Soomaaliyeed 18 milyan oo kamid ah 18 milyan oo kamid ah dawladda Soomaaliya taageeraan wallahi xaqiiqo jirto marka dadkan dad loo gali kara ma aha haddii ninka la yiraahdo Trump gurigiisa haddaad ammaan ka codsatid xataa wallahi waa kugu soo galaya mana ku garaacaya marka heesta waayaha cusub waxa kula talin lahaa intii ay xabsi guri noloshooda ku koobnaan lahaayeen oo noloshooda xabsi guri ku jira lahaayeen war heestaas ka dhileeda yaan waxa naftiina aan la idin qoonsan intaas ay kula talinayaa lixle iyo Shiina Khiyaar gabadhaas caawa waxa soo gaaray idinka u keenay baad naag cadaan walba aad u tafsiirtaan daaniya oo joogtay naagta Holandiiska ee Soomaaliga taqaanay baad inta uu heesta xifdisiisan tiraan qaada gabadha caawa kaliya in laga garaaco oo beerka haraanti laga geliyo miiska ay wax ku cunaysay saa loogu afkabiyo lagu jibiyo Shiina adiga xaaskaaga waa u keenay hadda waxa maanta ka xaaxaabi waxa hadayba sii noolaato waxaan leenahay Ilaahay ku boqolay ilama ahan waxa weeye qof uur leh inay waxaan rajaynayaa inaad daawatay muuqaalka wiilkan Soomaaliyeed haddaba daawadayaal arrimahan naxdinta leh ayaa waxa ay ka dhigan tahay in kooxda waayaha cusub ay soo wajahday qatar cusub taasina ay ka dhigan tahay in mucaaradaadkii looga hor yimaado YouTube-ka ay kala kulmi karaan bulshaweynta Soomaaliyeed ee kula nool wadanka Holland haddaba waxa aynu leenahay waa inaad ka digtoonaataan qatarta mana ahayn in la gaarsiiyo gacan ka hadal qofku wax waa uu mucaaradi karaa ra'yi ayuuna leeyahay ra'yigooda in lagu xushmeeyo ayay ahayd oo kaliya loogu koobo disleegta kaba aanan helin ra'yigiina hase yeeshee in gacan loo qaado haddii sida wax u dhacayna ay sax tahay runtii waa wax aad looga xumaado oo aad u foolxun bulshada Soomaaliyeedna aan looga baran weligeed ayaa la ismucaaradi jiray hase yeeshee hal la isdilo waa wax inagu cusub haddaba daawadayaal kooxda waayaha cusub ayaa marxalad cusub lugaha la gashay fanaanin hore uga tirsanaa oo muglana waa ay ka baxeen oo ay ka mid yihiin fanaanka Dalmaryare iyo sidoo kale Dikriyo sidoo kale isla Dalmaryare iyo fanaanin kale oo mugle oo uu ka mid yahay King Khalid iyo sidoo kale Ilka Caso hore uga tirsanaa ayaa heesa ku soo karbaashay kooxda waayaha cusub
haddaba fankii oo dilba waxa uu noqday mid dhiila ah. waxaan leenahay xaaladda nabadgelyaha lagu soo dabaalo, fanaaniinta Soomaaliyeedna aysan ku milmin siyaasadaha iyo arrimaha kale ee ka socda baraha bulshada. haddaba intaan warbixinteeda kala kulmayno waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo. haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreeyay ee janaalka Haldoor Media, fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarato si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino.